saddexda madaxweyne waxaan kula talinaya fadhi uma yaallo dabka halkaa ka qarxa hoog iyo halaag iyo dhib wuxuu u keeni doonaa Somaliland wuxuu u keeni doonaa Djibouti wuxuu u keeni doonaa kilka shanaad marka saddexda hogaamiye waxaan leeyahay mudane madaxweyne annagoon ku dhaliilayn annagoon hayn hogaamiyaasha dhaqanka ee habeenimo maalin cidna dhaliila cidna amaana waxaanu kugula talinaynaa go'aankaaga iyo mas'uuliyadaada iyo waajibaadkaaga madaxweynenimo ee ilaahay ku saaray ummaduna ku dooratay markuu ilaahay samada kaga dhawaaqay ummadana dhulka uu ku garansiiyay dhexda u xidho qoomiyad waliba waxay samaysatay 1 milyan ciidan ah marka la soo kala hadho cidda lagu soo jeedsanaya gacanta ugu horeysa ay ku dhacaysaa waa Soomaali waliba waa labada ugaas ee maanta ma aragta macawisi kor u laabtay ma aragta midiyaha dhiiga leena iskula soo baxaan doonaya khadaro adeer horta waa dhawahay waa runta muddo social media iyo xaaladaha dalka kulba ka jira ee ku soo kordhaa mid amni iyo mid siyaasadeed iyo mid kale oo haday tahay midnaba kama maanta waxay soo kiciyeen ugaasiyadii dalkan Somaliland amba madaqadan geeska Afrika ee Soomaalida dadka Soomaalida la yiraahdo afka Soomaalida ku hadla ay degaan ugu facaweynaa labadii beelood ee walaalaha ahaa ee oodi ab ka dhaway isku xigay cid walbana iskaga dhawaa dadka Soomaalida la yiraahdo dhan iskaga dhawaa at the same time haddii ilaahay maanta beedakeeda leeyna xidid iyo xigaalka ahaa wada degana saddexda dal Somaliland Djibouti iyo Ethiopia ee inagana ehliya walaalaha inoo ahaayee oodu inaga dhaxaysay degsiintu inaga dhaxaysay dalku inaga dhaxeeyay saddexda dalba inaga dhaxeeyeen ku ugu facaweynaa oo maanta ka taliyay colaad iyo dagaal gulf ayay soo kiciyeen marka waxaan rabaa ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim oo ah ugaasi anigu odayaashii caleema saaray baan ka mid ahaa iyo ugaas Cabdirashiid ugaas Doodi oo isaga laftigiisu 1977 baa la caleema saaray la igu yiri oo waa nin isagoo yar oo dhalinyaro ah maanta waa nin weyn Mustafa isagoo yar baa la caleema saaray maanta waa 30 iyo dheeraad Mustafa 1991 buu diray dhaba ku dhasho jaar baabano aniga ahayna bihi Maxamed Ibrahim marka ee soo far waxay soo kiciyay waqtiga aniga la caleema saaray 1991 kii ee la idijiyay diray dhaba ayuu dhashay 1991 marka waxay soo kiciyay colaada ay ku dhawaaqeen iyo inaan dadka reer Boorama ka tacsiyadeeyo dhibaatadii ku dhacday dadkii ku dhintay labada dhanba hadday yihiin ma aragta mujtamacii reer Somaliland ee reer Boorame ee dalkan taariikhda facaweyn ku lahaa iyo haddii ciidamadii qaranka ee xaaladda amni loo geeyay meesha intii ku dhimatay iyo intii ku dhaawacantay shacabkii reer Boorame dhalinyaradii inaan ka tacsiyado ilaahay uu naxariisto intii dhimatay intii ku dhaawacantayna Allah ha u booqadayo inta noolna aqligu talin lahaa kullay maanta de 50 suldaan baa ugaaska ilaa 25 suldaan baa barbar socda oo ka dambeeyay de aqliyadii talin lahayd haddii intellectualski professorradii Salebaan Cabdi Guuleed oo ma aragta 1994 aan wada joognay shirki horse ma aragta ilaa Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Somaliland iyo Djibouti baa wada degnaa ma aragta ayaa jooga waxa jooga maanta culimadii waaweyneed waxa jooga waxgaradkii waxa jooga dhalinyarada reer Booramo dad akademiya rag iyo dumar badan nabadana qiimaha ay leedahay iyo wanaaga garanaya inay ma aragta inta hadhay u taliyaan oo nabad ugu taliyaan oo ma aragta systemkan maamulkan Somaliland ee maanta talada haya shaqaaqadu ay dhex martay in nabad xaaladooda lagu soo dabaalo iyo oo aan uga dirayo iyada iyo tacsida iyo xaaladda labada beelood ee walaalaha labadii ugaasidii ugu taariikhda weynaa Soomaalida geyga Soomaalida la yiraahdo gebigeeda marka la yiraahdo shanta Soomaaliyeed waxa la yiraahdo waa ugaasidii ugu facaweynaa maanta ayaa colaad ku taliyay colaad maanta oo aynu ku jirno qarnigii 21aad ma aragta oo aakhir saban dunidu joogto oo wacyi iyo waayo badan Soomaali ay haystaan oo deriskeeni qoomiyadihii waaweynaa Samaatigi iyo Kushitigi
axmaaradii oromadii tigreegii eritreyaankii canfartii intiiba way subeynaysaa maanta waa la isriixayaa wax kale layskuma haysto awood baa laysku haystaa cidda awooddaa ku guulaysataa badda iyo mandaqadan ay soomaalidu ku nooshahay ilaa inaguna kushitig baynu nahay ma aragta inagii oromadu soomaalidii oromadu tigreeg iyo axmaaradina waa samaatig ma aragta inaga oromada soomaalida oromada iyo canfartuna waa kushitig canfarna iskuma fiicnin haddaynu soomaali nahay oromana iskuma fiicnin at the same time tigreeg iyo axmaarana iyo eritreyaanna maanta iyagoon iyaga laftigooda aan isku fiicnayn way midoobeen quwadii awood bay samaysteen qoomiyad walibana oo la mida qoomiyadan la yidhaha soomaalida ama kilalka shanaad degtaa ama jabuuti degtaa ama somaliland degtaa qoomiyad waliba waxay samaysatee 1 milyan ciidan ah marka la soo kala hadho cidda lagu soo jeedsanaya gacanta ugu horeysa ay ku dhacaysaa waa Soomaali waliba waa labada ugaas ee maanta ma aragta macawisi kor u laabtay ma aragta midiyaha dhiiga leena iskula soo baxaan doonaya doonaya intii shabaabkii yaraaye inoo noolaaye soo kacay aynu eegnay inay ma aragta waqtiga Ethiopia lagu soo kala baxo oo dalkeenii labaada ama dalkeenii koowaada in ay u istaagaan sidii ay qarannimadeena jiritaankeena badeena dhulkeena cirkeena ay u ilaalin lahaayeen sidii maanta loo baabiin lahaa marka waxaas ay soo kacay labada beelood aad kula talinayeen meelo soo koobayada والله أنا سو كوبي الله وضع بيلوده ولا لها دتك تلين شري مدة دير سو تلين شري أي هرك جوجا ويهين من تقدم كنا ولا صدق هذا الصومالية ما عرفت كنا الجيش كأفريقيا الصومالية جيبوتي وحكولات لا ما أنت وقاسيدي كتر لا علات وقاس مصطفى وقاس عبد الرشيد معها جندياشة كحيرا labada ma aragtaa hogaamiye dhaqameed mandaqadan geeska Afrika ugu facaweyn maaha inay ku raacaan ama kula taliyaan inamada ugaasyada ah mandaqadan geeska Afrika ciisiya samaroon dadka afka Soomaaliga ku hadlana ugu ugaasiyo inay maanta colaad ugu ma aragtaa ku raacaan ama ay kula taliyaan maaha dawladaha bal Somaliland iyo Djibouti oo ay labada dhinacba ay degaan iyaga maxaa waajibka saddexdaba waxaan kula talinayaa hadday tahay Somaliland iyo hadday tahay Djibouti iyo hadday tahay dawlad deegaanka kilalka shanaad Mustafa Maxamed Cumar iyo Ismaaciil Cumar Geele iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirraba saddexda madaxweyne waxaan kula talinayaa fadhi uma yaalo dabka halkaa ka qarxa hoog iyo halaag iyo dhib wuxuu u keeni doonaa Somaliland wuxuu u keeni doonaa Djibouti wuxuu u keeni doonaa kilalka shanaad marka saddexda hogaamiye waxaan leeyahay aragti midaysan oo islaamnimo Soomaalinimo damiirnimo dadnimo oo qoto dheer dhaxal wanaagsan uga taga dadkiina ay idinka maanta waa nooshiimaan leeyahay wayda Ismaaciil Cumar Geele haduu yahay oo oday Soomaaliyeeda oo way araga oo waxgarada oo aragti fog oo maanta ka ugu weyna Ismaaciil oo ka tali nabad baa leeyahay oo tali ummadan Soomaaliyeed aad in badan rabtay Soomaali inaad wax la qabato kuwii Djibouti iyo kuwii Somaliland iyo kuwii kilalka shanaad baa maanta in ay masiiba ka dhex qaraxdo u tafaxaytay odayga ugu weyn een sidii dabka loo damin lahaa dadkaana loo walaalayn lahaa gogol nabadeed oo qota dheerna aad noogu dhigi lahayd kii ka talin lahaa noqo Mustafa Cabdiraxmaan noocan leeyahay ku raaco waa idinka weeyay Ismaaciil waana idinka waayay aragsay labadiinuba si dhaba arintaa u galo lilaahinimo daacadnimo ah ayaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliland si gaar ah waxaan u farayaa waajib baa ka saaran ummadda Soomaaliland ee ku nool maaragta dalka Soomaaliland halka ay dhibaatada ugu weyn inay ka dhacday lagu baayay la isku haystaa waa deegaankii iyo dalkii aad adigu madaxweynaha ka ahayd Ilaahay mas'uuliyadiisa iyo waajibaadkiisa ku saaray marka mudane madaxweyne annagoon ku dhaliilayn annagoon hayn hogaamiyaasha dhaqanka ee habeenimo maalin cidna dhaliila cidna amaana waxaanu kugula talinaynaa go'aankaaga iyo mas'uuliyadaada iyo waajibaadkaaga madaxweynenimo ee Ilaahay ku saaray ummaduna ku dooratay markuu Ilaahay samada kaga dhawaaqay ummadana dhulka uu ku garansiiyay dhaxda u xiro oo si daacadnimo oo lilaahinimo oo ka baxsan arrintan maanta taagan ee dhiigga sababtay
sidii ay ku inta waqtiga ay bilaabantay si aad u maamuleysay ama adigiyo dowladdaadu aad u hagayseen si ka duwan xaq allahu akbar ayaa lagaaga baahaya inaad dhexda u xidhato